بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada shabakada sologroups.com laga barto cilmiga IT-ga ama information technology ee ku baxa luqadda afka Soomaaliga. Magacaygu Cabdinaan Ismaaciil, emailka sida caadada ah waa info@sologroups.com. caawa waxaan idin haynaa barnaamij aad u xiiso badan oo run ahaantii aan dhihi karo aad u uga duwan yahay barnaamijyadii horan u sameynay. Tabcan waa programming oo ah IT waxa ugu muhiimsan ee la barto, laakiin waa ka duwan yahay. waxaanu samayn doonaa project la yiraahdo ASP.NET project. Projectigan wuxuu soo mari doonaa qof walba oo barta programming, qaabka wax loo sameeyo, meesha laga bilaabo iyo ugu dambaysi xilliga la sameeyo, sida loo gudbiyo cidii ku soo weydiisay. Marka intaanan sii gudagelin waxaanu samayn doonaa ASP.NET project. Tabcan ASP.NET aad ayaan u naqaan ama .NET haddii laga soo gaabiyo waa framework application lagu sameeyo noocyada kala duwan ee online iyo desktop application kala duwan, Windows, noocyo aad u fara badan. waa flexible iyadoo la isticmaali karo cross platform applications. Marka waxaan samayn doonaa how to create a post or a database. Sidee loo sameeyaa maktabad lagu kaydiyo buugaag kala duwan. Marka projectiga insha Allah waxaan ku samayn doonaa tabcan ASP.NET oo framework ah, luqadda waa C# oo aad ugu muhiimsan. Visual Studio 2013 ayaan ku dhisi doonaa ama aan ku dhisnay barnaamijka waan diyaarinay, iyo dhanka database-ka oo aan ku samayn doono SQL Server 2014. marka Visual Studio waxaan ku dhisin doonaa interface-ka wejiga hore qaabka uu shaqeeyo. Marka barnaamijkan ra'yiga ayuu ku yimid. ra'yigaasoo uu ka yimid arday ka mid ah ardayda sologroups.com oo shakhsi aan very good friend aan nahay oo ku nool magaalada Jigjiga. magaciisana kulley waxaa la yidhahdaa Casey Yusuf ayaa la yidhahdaa. waxaan isku dayayaa in aan idin tuso sawirkiisa si aad u wada aragtaan. This is Mr. Casey ayaa ra'yi ka yimid sababtoo ah inta badan waxaan tagaa sanadkiiba hal mar waxaan tagaa dhulka Somali State of Ethiopia, caasimadda Jigjiga ayaan tagaa si isbeddelka ka socda aan mar walba uga qayb qaato. isla markaana waxaan tagaa Somaliland iyo meelo kale oo kala duwan. marka ra'yiga wuxuu ka yimid shakhsigan oo IT-ga maaragtay aad ula socda, aadna ugu jira, aadna u og, oo magaalada Jigjiga ku nool. isla markaana ra'yiga waxaan dhihi karaa wuxuu ka dhashay meeshan ayuu ka dhashay. meeshan waa Maygaag Internet Cafe oo ku yaalla. waa sanadkii hore 2018 xilli aan tagay oo runtii day and night halkan ayaan joogay si internet fast aan ugu isticmaalo. marka ra'yiga wuxuu ahaa in aan samayno project kaasoo ah sida maktabad ay u isticmaalaan dowladda gobolka Soomaalida ay u isticmaalaan inaan maktabad u samayno. marka projectigii xilligii uu soo gudbiyey iyo qaabka uu soo gudbiyey ayaan eegi doonaa. xilligii uu soo gudbiyey ilaa iyo implementation waxa la yidhahdo sida loogu sameeyo wuxuu qaatay 10 maalmood in lagu sameeyo. marka ugu horeyn wuxuu soo diray project noocan ah sidan ah, kaasoo ah Ethiopian Somali Regional State Revenue Authority Store Database. qaabkan ayuu soo diray. marka design runtii waa very simple qaabka loo sameeyo, laakiin implementationka ayaa la doonaya qaabkan inuu shaqeeyo. waa zone kala duwan. faafaan zone ka bacdi waxaa jirta magaalooyinkii Araarso, Jigjiga iyo wixii soo raaca. Shabeelle zone, Afdheer zone, City zone, Jaraar zone. anyway macnaha waa fahmi karnaa. marka waxaa la doonayaa designka iyo applicationka in uu sidan u shaqeeyo ayaa la soo codsaday. kadibna in uu yeesho number oo serial ah, wareedda. marka waa buugaag ayaa adminka u gelinaya. adminka markii uu geliyo kadib iyadoo privilege uu haysto shakhsigii isticmaali lahaa ayaa waxaa la samaynayaa in laga saaro. marka qaabkan ayuu ahaa. marka dhankan kani waa inputkii uu samayn lahaa. tusaale ahaan haddii 500 buug la geliyo, xilliga la geliyey, meesha laga soo geliyey magaalada, iyo shakhsiga staffka qofka soo geliyey. kanna waa
outputkii ka bixidii qof walbana waa la ogaanayaa ipura uu joogo shaqada uu hayo positionkiisa id numberkiisa taariikhda uu bixiyey iyo qofka authorized ku noqday marka run ahaantii xilliga aad tahay programming waxaa lagu soo diraya design noocan oo kale waxaa lagu leeyahay waxaan doonaynaa kan ayaan doonaynaa marka 8 maalmood ayaan tusaale ahaan aan ku samaynay designka laakiin bugs mar walba barnaamij cusub aad samaysid ama programming aad qortid waxaa soo raacaya bugs oo ah qaladaad ayaa soo gala marka qaladaadka sida looga saaron waqti ay qaadanayaan kadibna markii aan ogaanay wax walba inay 100% ay shaqaynayaan waxaan u sameeyey setup kaasoo ah 10 dambe aan ka samayn doono 10kan ku xiga oo aad useful u ah sababtoo ah inta badan waxaan aragnaa programming in la qoro xilliga la qoro kadibna la yiraahdo everything is working hadduu ASP.NET yahay hadduu yahay wax kale lagu sameeyo PHP lagu sameeyo uu diyaar yahay laakiin waxaan arki doonaa working one mid shaqaynaya oo sidii la rabo u shaqaynaya marka waxaan u isticmaalnay local ahaan iyo isagoo automatic ahaan ugu xiran dhanka iyo serverka dedicated server isagoo database-ka halka u keydinaya dynamically isla markaana ka soo qaadaya marka haddii la qaado oo Ethiopia la geeyo ama meel kale la geeyo ama Jigjiga la geeyo haddii lagu duubo sidii software ahaan ayuu shaqaynayaa systemkana waa dynamic meeshii wax laga soo gelin kalena way soconayaan marka waa runtii cashar aad u xiiso badan oo loogu talagalay xilliga uu diyaar noqdana loo sameeyo waxaan u gudbinaynaa insha Allah dhanka iyo waxaan u gudbinaynaa Ethiopian Somali Regional State Revenue Authority Store Database in gudbinay iyaga ayaa iskale marka ma ahan cashar maaragtay isagoo diyaar ah waan in soo gudbinaa la dhihi karo ma ahan iyaga ayaa iskale iyaga ayaa loo dhaafaya marka ugu horeyn waxaanu samaynaynaa waxaanu aadaynaa dhanka iyo database-ka ayaan furayaa Microsoft SQL Server Management Studio Administration waa saa ku aragtaan server 2004 kan ugu dambeeya kan waa server name-ka waan naqaana waxaan leeyahay connect ayaan leeyahay markaan yiraahdo kadib waxaan samaynayaa database-ka ayaan samaynayaa database-ka tabcan waa ii diyaar waxaan doonaynaa kaliya in aan u samayno right click aan yiraahdo waxaan haysanaa script new database ayaan leeyahay kadibna waxaan ku qorayaa database-kii waxaan leeyahay books small letter waa inaan u isticmaala books app ayaa la yiraahdaa database-ka oo k ayaan leeyahay marka database halkan ayuu soo gelayaa books app halkan ayuu ku jiraa saan ayuu soo galay books app kaligiisa marka halkan waxaa ii yaala saan ku aragno SQL database oo aan filayo in gebi ahaan isagoo diyaar ah ayaa halkan u yaala marka waa script noocyadii kala duwanaa books app keedaan sameeyaad ujeedid scriptiga waqtigiisa timeka dateka wax walba halkan saan ayuu yaala marka waarna isagoo diyaara citizenka employee wax walba username-ka ID-ga isagoo diyaara marka waxaan leeyahay control A ayaan leeyahay copy ayaan ku leeyahay kan minimize ayaan leeyahay dhankan ayaan aadayaa serverka ayaan aadayaa waxaan furayaa new query ayaan saan u furayaa markii aan furo books up waa ii diyaar right click ayaan leeyahay paste ayaan halkan ku leeyahay markuusaan usoo gala kadibna waxaan leeyahay execute ayaan leeyahay saa ku aragtaan query executed successfully marka wax walba waa ii diyaar sidii loogu talagalay dhanka iyo database-ka marka kadib waxaan furayaa oo halkan ii yaala Microsoft Visual Studio 2013 oo books application oo designkii wax walba halkan sana u yaalaan marka waxaan ku aragnaa books app hoostiisa inay yaalaan wax walba oo form ah laakiin formka intaan la gaarin waxa ugu horeeya aan eegay wuxuu noqonayaa in aan app.config oo connection string ah aan laba jeer saan riixo markaan saan furo runtii kan waa ka duwan yahay kuwii hore aan arki jirnay connection string sababtoo ah waa local connection setting oo commented ah iyo RDP remove desktop kaasoo ah systemka serverka Windows applicationka Windows hostina waayo waxaa jira PHP ayaa jira kaasna saan ku aragno waxaa ku jira oo yara qarsan IP addresska aanu isticmaalno linkiga meel walba adduunka laga geeyan laga isticmaali karo marka ugu horeyn dhanka localkan samayn doono waxaa indhaha ku dhacaya connection string serverka in uu ka duwan yahay kan isticmaalna sababtoo ah SGO waa Solo Groups Office barnaamijka waxaan ku sameeyey office-ka ayaan ku sameeyey marka si aan ugu soo celiyo kan waxaan tegaya halkan file ayaan leeyahay connect to object explorer server name-ka waa kan ayaan right click leeyahay copy ayaan leeyahay isla meesha ayaan ku laabanayaa waxa ugu horeeyaan bedelay wuxuu noqonayaa kan ayuu noqonayaa source equals that
ayaan leeyahay solargroups.com SQL Express kadibna halkan ayaan tegayaa waxaan leeyahay right click paste ayaan leeyahay markaan sameeyo waxaan leeyahay control S ayaan leeyahay halkan isbedel ayaa ku dhacay kana la bedeli maayo sababtoo ah haddii hal mar barnaamijka aan setup aan u sameeyno xilliga aan u sameyn doono setupka kan automatically adduunka meeshii la geeyo applicationkan wuxuu u shaqeynaya sidii loogu talagalay marka sidaan ku aragno halkan waxaa yaala barnaamijyo kala duwan ayaa yaala oo formkii oo kala duwana tusaale ahaan haddii aan idhaahdo main login.c# laba jeer ayaan riixayaa waxaan ku aragnaa designkii ugu horey inuu soo baxay kii oo aan kasoo qaadanay Ethiopian Somali Regional State Revenue Authority Books or Database waxaan ku aragnaa calanka Ethiopia federaalka iyo kan dhulka Soomaalida ay degto oo caasimadeeda tahay Jigjiga marka designkii iyo backgroundkii calankii tabcan waan naqaanaa sida loo sameeyo casharo badan oo ku sameeyo tusaale ahaan haddii kan aan sidaan u riixo wuxuu noqonayaa dhankii admin loginkii haddii hoosaan aan u eego dhankan waxaad ka arkaysaa iconkan meel walba uu gelaya kan adminka oo naqaanaa backgroundka siduu yahay wax walba sawiradii midabkii tusaale ahaan background colorkii waa kan haddii aan idhaahdo background colorkiisu isbedelaya waa kan saan u naqaanaa saan u bedelno flag oo kale haddii saan aan u idhaahdo dhanku yaalo picture flagga magaca kuwan waan sameyn oo jeeda system drawing bitmap oo kana marka wax walba sidii loogu talagalay ayuu shaqeynayaan sidan haddii aan idhaahdo kan oo kale haddii aan idhaahdo kan dushadii aan tago dhammaan wixii halkan ay yaalaan waxaa ujeedaa plus admin loginka midabkii halkan ayuu yaalaa light green marka waxaan dhan waa naqaanaa sida loo sameeyo casharo badan waa ka sameynay kadibna waxaan eegaynaa a form user panel waxaad arkaysaa macluumaadkii loogu talagalay in isticmaalaha uu halkan ka helo in halkan ku jirta info welcome zoonkaad ka mid tahay zoonankii waan aragnay dabcan haddii aan ku laabto waxaan aragnaa zones iyo magaalo zoonka iyo city magaaladaada waxaad haysataa halahana buuga ayaa zoonkaaga yaala zoonka ayaa buuga la soo gelinayaa intaas ayaa u hortay marka get the books from the zone database halkan ayaad u gelinaysaa waxaad arkaysaa memberka dadka inta memberka ah ee ku jira zoonka halkan ay soo gelayaan kan waa form user login markaasaa ku aragtaan sida loogu talagalay labela qarsan ayaa halkan saan u yaala kaasoo sameynaya usernameka isticmaalaha sababtoo ah adminka wuxuu leeyahay privilege wuxuu leeyahay quwad uu ku maamulo ayuu leeyahay laakiin kan male quwad sidaa amale waxna ma bedeli karo waxna ma tirtiri karo waxna ma samayn karo username iyo password waa la gelayaa haddii uu ilaabo kan waxaa u soo diraya adminka haddii loo sameeyo SMTP automatically emailkiisa ayuu gelinaya si automatic ahaan ayaa loogu soo diraya laakiin iminka haddii local loo isticmaalayo tabcan xilliga la doonaya inuu dynamic noqdo waa in computer internet leh uu ku jira si uu ugu xirmo IP addresska sida loo helo markan saas ayuu shaqeeyaa marka waxaa kaloo halkan yaala book stats wixii book stats halkan ayay soo galayaan sababtoo inta boogee la qaatay meesha laga qaatay cidda ogolaatay halkan ayuusan usoo gelayaa kan passwordka xilliga la doonayo reissue mar walba waxaad inaad ku qabataa in kan una soo raacayo kanna midabkan san u bedelan yahay haddii aad dusha sana u tagtid aad arkaysid iconka mar walba una soo raacayo kanna midabkiisaan uu yahay waxaa kaloo halkan yaala form issue a password requested qofka soo weydiiyey get information new user new password adiga ayaa samaysanaya automatic lagu ogolaanaya halkan kale waxaa yaala form get new password mention your emails here xilliga uu ku xiran yahay SMTP-ga isla markaana uu live uu ku yahay internetka halkan ayaa emailkaad gelinaysaa request password ayaa leedahay systemka si automatic ahaan ayuu kugu soo dirayaa form extras waxaa ku jira update-ka lagu sameynayo tusaale ahaan mar dhow waxaanu ka saari doonaa xilliga applicationka aanu isticmaalayno in aan ka saarno update garayno delete aan ka dhigno magaalooyinka iyo zoonka aan isticmaalayno halkan waxaa yaala form books allocation history.cs kan history ayuu ku tusaya marka waxaa muhiima mar walba afalaarta kan ka hoose haddii aan sii furo waxaan ku arkaa designkii waa mid dhanka kalena haddii right click aad samaysid waxaad arkaysaa tabcan view code haddii aan idhaahdo dhankii iyo codekii ayaa halkan yaala oo aan naqaano marar badan aan isticmaalnay waa C# runtiina a very simple qaabka
loo sameeyo loo qoro halahan keliya halaas ayuu sameynaya marka waa isoo wada raacaya waa ujeedaan inta badan waxaan aragnaa a variable tusaalahan haddii aan idhahdo variable allocate ama c history query equals form xx waa variable in database.table zone and the book sababtoo ah a database-ka table kala duwan ayaan u sameynay marka wuxuu leeyahay from a variable in database.table zone books join variable in database table zone on xx zone id equals yy.id select new waxaan o dhan aragno book allocated remaining books waa kan aan ka hadlayno oo kan ah history kan halkan soo gelinaya dhammaantiis wada dynamic ah halkan kale waxaa noo yaala a form add new user sida loogu daro isticmaalaha employee name magaciisa zonekiisa waa drop down databasekiisana waa ka duwan yahay magaalada bureau uu ka shaqeeyo id numberkiisa positionkii uu ka shaqeeyo magaca isticmaalaha passwordka iyo emailka kaas haddii aan hoosisi furo waxaan ujeedaa a form add designka laba jeer ayaan riixayaa halkan waxaa soo baxaya dhankii iyo koodkii oo ah kii buttonska panelka isaga u shaqeyna marka waa sidii aan naqaanay text city text bureau labelka a combo box uu shaqeeyo a text box label marar badan aan soo aragnay haddii aan tago halkan waxaa ku jira a connection textgiisa books application kan admx aan isku wada darnay ayaa ku jira halkanna waxaa yaala admin panelkii oo ah kan xilliga la furo wax walba lagu darayo kan aad ayuu muhiim u yahay sababtoo ah waxaan ku aragnaa halkan in laga samayn karo waa dhanka adminka laga samayn karo password request halkan ayuu soo gelay imisa password ayaa la soo weydiiyey cid soo weydiisay halkan ayuu kusoo diray tijaabana ku sameynaynaa isticmaala sida loogu daro halka edit laga sameeyo delete get book statskii ee dhan kale ka soo baxaya halkan adminka ayaa marka ugu horeysa tabcan wuxuu geliyaa admin ayuu geliyaa systemka marka waxaa leeyahay admin update your password here sababtoo ah haddii applicationka la geeyo jigjiga la geeyo ama magaalooyin kale ama qalaafe ama magaalooyin kale ee kelinka la geeyo adminka waa in uu isaga samaysta halkan uu ka samaystaa uu yidhahda enter your current password admin tabcan check ayuu leeyahay kadibna new password dhankan magaalooyinka ayaa looga daraa ee zonka magaalada iyo zonka drop downkana isla markii wuxuu sameynaya xilliga lagu daro marka haddii right click aan idhaahdo vcode aan idhaahdo kan isa sida ayuu shaqeynayaa exactly with c sharp sida uu shaqeynayaa combo box wuu socdaa databaseka waad aragtaa a different class variableska halkan oo kale variable ujeeda variable databaseka tableka kii socday all variables iyo tusaale ahaan kan oo naqaano toggle pass requires panel kan toggleka waxa la yidhahda waxaa laysu dul dhaafo ayaa la yidhahda toggleka la yidhahdaa if check password requested equals 0 panel resolved visible equals true hadduu false ahaan lahaa panelka waxa ka soo baxay lama arki lahayn text password count tux equals check for password request to string marka wuu soconayaa ilaa halka gaaro marka waxaad ku aragtaa inta mar walba haddii aad tahay programming waana kusoo barnaa casharada visual studio to do this line of code data is book up dataset.table zone table you can move or remove it as needed kan waxaa loogu talagalay qof shakhsiga shaqaalaha ee jooga jigjiga ama magaalooyin kale in uu reference aan uga qaato kan sababtoo ah haddii aad tahay professional programming person waa in aad samaysa to do laamankan sida loo sameyno waan isla soo baranay marka saan ayuu soconaya ilaa aan aragno different string inay ku jiraan password does not much enter new password panelka password kuu sameynaysan ayuu soconaya ilaa meesha ugu dambeysa uu ka gaaro marka qaabkan ayuu u shaqeeyaa programkii koodkii wax walboo diyaara halkan ayuu ku jiraa marka saari kuu sheegay 8 maalmood ayuu qaatay kadibna wax walba teesa marka lagu sameeyey sida loogu talagalay ayuu u shaqeeyey marka waxaan leenahay iminka dibag ayaan leenahay bal aragno inuu shaqeynayo in kale kan tijaabada ah kan kalena insha allah waxaanu sameynaa setup marka la sameeyo kaas ayaan arkaynaa waa soo baxay si caadi u shaqeynaya marka ugu horeyn waxaan leeyahay admin ayaan leeyahay waxaan isticmaalay tab ayaan isticmaalay login ayaan leeyahay markaan idhaahdo iminka waa local waxaa soo baxaya kan oo aan aragnay ayaa soo baxaya markuu sidaan usoo baxo waxaan leeyahay kan iska minimize ayaan leeyahay kana minimize ayaan leeyahay waan iska xirayaa si focus halkan uu noqdo marka
waxaan tijaabo ku sameeyay employee name Ilyas Ismaaciil zone Banaadir city Hodan ka tabcan waa Soomaaliya waa tijaabada iyo emailka siduu yahay marka waxaanu ku daraynaa mid cusub ayaan ku daraynaa tusaale ahaan waxaan leeyahay halkan ayaan ka bilaabaya xusuus waxa mudan in magaalo kale aan ku darno oo si genuine aan ugu darno faafaan iyo waxaan ku daraynaa jigjiga add zone ayaa leedahay halkan waxaad qoraysaa faafaan kadibna waxaad leedahay add ayaa leedahay isla markii wuxuu ku leeyahay faafaan is added as a zone haddii aad doonto halkan ayaa ka bedelaysaa kadibna haddii aan drop down ku sameeyo faafaan aan idhaahdo waxaan ku darayaa magaalada jigjiga ayaan ku darayaa add ayaan leeyahay iminka faafaan jigjiga waa lagu daray allocationka markaan u sameynayo zonekan wuxuu noqonayaa waxaan leeyahay 500 oo book ayaan ugu talagalay add ayaan leeyahay kadibna wuxuu leeyahay 500 books added to zone faafaan haddii aad doontid af Soomaali afka doontid ku bedeli kartaa halkan kadib inagoo og password haddii aad doontid waa admin kan current la isticmaalayo xilligan tusaale ahaan haddii aan idhaahdo passwordka wax kaloo qalad aan ku qoro aan idhaahdo check ku samee aan idhaahdo taban wuxuu ku leeyahay password is not much haddii aan idhaahdo laakiin admin aan idhaahdo waxaan ku qorayaa halkan admin ayaan ku qorayaa waxaan leeyahay check wuxuu sameynayaa passwordkii aan hadda aan gelin ayuu check ku sameynayaa kadibna halkan ayaad ka bedelaysaa sababtoo ah haddii wax kale aan ku daro check aan idhaahdo طبعا ما يلايو كان أدو يلو أدمين كادو صبح وحبا كان كلا يبدلي كرتا مركا أدني يوزا يان لي هاي وحان كدريا كيسي يوسف يان لي هاي كدي وحان لي هاي وفافان مقالة جيجيجا اوتوماتيكلي مقالة كلا دوزي جرتنا دروب داون يوسمين يا بيرو يوسا وحان كديجيا السيرفيس يان كديجيا ID number kiisa waxaan leeyahay KY123 magaciisa position kiisana waxaan leeyahay uga shaqeeyo manager ayaan leeyahay username kiisa waxaan leeyahay case small letter ABC123 marka admin ka waa arki karaa haddii aad doontid waad qarin kartaa kan adigu bay ku jirtaa marka waxaan leeyahay case@sologroups.com as a tijaabo laakiin xilliga applicationka la diro wixii la doonayaa lagu samayn karaa safe ayaan leeyahay marka user successfully saved okay ayaan leeyahay marka haddii aan doono kan ayaan highlight leeyahay kadibna id ayaan leeyahay delete haddii aan doono add user kale anigu bay ugu xiran tahay marka aan xasuusano usernameka waa case passwordkana waa ABC123 waxaan leeyahay logout ayaan leeyahay markaan yidhi logout kadib waxaan leeyahay user login ayaan leeyahay iminka waa isbedelay dhankii designkii horaan usoo arnay userka ayaa halkan soo galay iminka waxaan leeyahay case ayaan leeyahay ABC123 ayaan leeyahay login ayaan leeyahay marka wuxuu i keenayaa case oo saa ku aragtaan case Yusuf wuxuu ka tirsan yahay zonka faafaan city iyo city isjigjiga waxaad leedahay 500 book ayaad leedahay marka iminka bal waxaan leeyahay case ayaa soo galay wuxuu doonayaa in buugaagta loogu talagalay uu ka saaro 100 xabo uu ka saaro 100 ayuu ka saaray get books ayaan leeyahay you got 100 books okay haddii aan idhaahdo waxaa dhacaya remaining halkan uu joogo uu la baxay 100 book ayuu la baxay remaining waa 400 iyo saan ugu hartay marka akan sidan ayuu u shaqeeyaa marka saa ku aragtaan member of your zone haddii lagu soo daro dad kale employee name city bureau position ilaa ugu dambaystii meesha ugu dambaysa ayuu tegayaa logout haddii aan idhaahdo waxaan aadayaa iminka waxaan geliyaa admin kan hoosena waxaan leeyahay admin kadib waxaan leeyahay login ayaan leeyahay markaan idhaahdo waxaan ku arkaynaa iminka get user book states ayaan leenahay waxaan ragnaa faafaan jigjiga 500 ayaa la siiyey waxaa ka baxay outbook ah allocated waa la marka waxaa loo isticmaalaa xilliga la isticmaalayo ka saarida noocyadan ah waa allocated ayaa la yidhahdaa allocatedna waa marka buwaagta la siiyey waa kan out 100 remaining employee nameka qofka la baxay marka waa la sheegay wuxuu ahaa Mr. Casey ayaa la baxay Yusuf ayaa la baxay waa la ogyahay marka waxaan sameynaynaa another user ayaan ku daraynaa waxaan ku daraynaa isla faafaan ayaan ku daraynaa magaciisa waxaa la yidhaahdaa Jamac Ali waxaan leeyahay Bureau YMC ID-giisana wuxuu noqonayaa mar walba waxaan ka dhigaynaa JA oo ah Jamac Ali 123 waxaan leeyahay positionkiisa waxaan leenahay super
supervisor ayaan leenahay. usernamekiisa wuxuu noqonayaa jaamac ayuu noqonayaa abc 123. waxaan leeyahay jaamac at solargroups.com ayaan leeyahay. safe ayaan leeyahay. iminka uu galay halkan waan ku aragnaa si cad ayuu soo galay areada uu yahay meel walba. marka waxaan leeyahay lockout ayaan leeyahay. iminka halkan ayaan tegayaa. waxaan leeyahay dhankan iyo user login ayaan leeyahay. marka haddii aan idhaahdo jaamac waxaa laga yaabaa in uu iloobay passwordkiisa inuu iloobay ayaa laga yaabaa. marka waxaan leeyahay forgot the password. waan iloobay. request a new username password from admin. yes ayuu leeyahay. marka mention your email here. marka sida ugu fudud waa ma oran karaa case maya waa jaamac ayaa iloobay. jaamac at solargroups.com request the password. new password will be sent to your email jaamac at solargroups.com shortly. طبعا email haddii smtp-ga loo sameeyo horey ka gelaya. marka jaamac weli ma uusan helin. wuxuu sameynayaa back. wuxuu u tegayaa adminka ayuu tegayaa. admin weli wuxuu leeyahay sababtoo ah systemka smtp male. wuxuu leeyahay ima soo dhicin wax email maxaan sameeyaa. login markuu yiraahdo isla markii waxa ishiis ku dhaxaysa request password ayaa dhacay. one halkan ayuu ka arkaya resolve ayaa leeyahay. marka waxaa soo weydiistay shakhsigan la yiraahdo Mr. Jaamac ayaa soo weydiistay. halkan ayaa tegaysaa. waxaad leedahay issue. waxaad u jeedaa username not sent, password not sent, resolve weli lama sameyn. issue ayaad leedahay. kadib ayaa loo dirayaa. marka request by Jaamac at Solar Groups. get information haddii aan yiraahdo informationkiisa Mr. Jaamac wax walbaan u jeedna waa arkaynaa. marka iminka waxaan leeyahay haddii aan doono waxaan leeyahay Mr. Jaamac waxaan ku siin doonaa username iyo password aan ku siin doonaa. sababtoo ah markii aan yidhi get information user informationka sidan ah halkan ayaan waxaan ka helay jaamac cali faafaan jigjiga wax walba halkan qoran passwordkiisa soo baran. marka sababta uu passwordka halkan u yaallo oo loogu jeedo macnaheedu waxay tahay haddii isticmaala jaamac uu doonayo isla passwordka inuu isticmaalo tabcan isla kii unbaa loo sheegaya ama loo diraya ama la siinaya. marka waxaan xirayaa kan ayaan xirayaa. kadib sidiisa ayaan ku dhaafaya sababtoo ah dooni maayo in password aan siiyo. passwordkiis kale ayuu isticmaalaya. kan ayaan xirayaa. kana waan xirayaa. kadib waxaan leeyahay log out ayaan leeyahay. user login ayaan leeyahay. iminka Mr. Jaamac wuu xusuustaa. waxaan tegaya halkan ayaan tegaya. waxaan leeyahay jaamac abc 123 login ayaan leeyahay. Mr. Jaamac ayaasaan usoo gelaya. memberka zoonkiisa ku jira waa case ayaa kula jira. marka asaan ayuu gebi ahaan u shaqeeya. marka haddii aan doonayo zone inaan edit ku sameeyo ama delete aan ku sameeyo halkan ayaa tegaysaa. waxaan ku sameynaynaa banaadir oo kale ayaa ku jira halkan oo Mr. Ilyas ku jiro. haddii aan ka saaro delete aan yiraahdo informationka ku jira dhan gebi ahaan wuxuu aadayaa kaas ayuu aadayaa. USA delete ayaan leeyahay. wixii macluumaada ku jira gebi ahaan waa ka wada baxaya. marka zoonka iminka maxaa ku haray waxaa ku haray faafaan. marka faafaan haddii aan ka saaro dhammaan bugaagtii sidii awal ay ahaayeen ayay ku laabanayaan. marka haddii halkan ka baxo halkan waxaa yaallaa check history faafaan 500 allocated remaining books waa 450 allotment date 808 240 200 waqtigan quantity untouched since added ilaa xilliga lagu daray waxba lagama saarin. marka ugu dambeyntii one more time haddii aan eegno add user aan idhaahno qaabkan ayuu shaqeynayaa. edit haddii la yiraahdo halkan ayaa la tegayaa. edit ayuu sameynayaa. editkan waa ka baxaya. saas ayuu shaqeynayaa. marka aad ayuu mahadsan yahay mar labaad Mr. Case oo ra'yigan iyo designkan iyo waxa ka yimid. insha allah waxaan filayaa casharka soo socdo in aan ku sameyn doono setupka sababtoo ah softwarekan waa local hadda saan ku aragno halkan ayuu yaallaa. wuxuu yaallaa local kan waa inuu ku jiraa systemka laakiin lama baahna. xilliga aan sameyn doono insha allah setupka la sameyn doono waxaa dhacaya in aan loo baahnayn in la furo qaabkan wax loo furo uu noqon doono in installation lagu sameeyo. double click ayaa lagu sameynayaa oo lagu duubaya. haddii lagu duubo dynamic ayuu noqonaya as long as internet uu ku xiran yahay halkan ayuu ka qaadanaya. tabcan halkan haddii aan tagno halkan ayuu ka soo qaadanaya oo ah dhanka iyo app config-ga waxaa dhex yaala saa ku aragtaan IP address-kan ayuu ka soo qaaday data source oo ah. marka waxaan filayaa casharkan xiisaha leh
ASP.NET project oo aan u sameynay Somali region of Ethiopia, how to create a book store a database. halkan kaga baxayna waxaan isticmaalay ASP.NET, C#, Visual Studio 2013, SQL Server 2014. wuxuuna qaatay 8 maalmood ilaa bugs looga saaro. kulley wixii kaloo macluumaada mar walba info@sologroups.com ay nagala soo xiriiri kartaan. anigoo ah Macalin Cabdinaasir, intaa wada kulmi doona waxaan idinkaga tegayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.